saddex ka mid ah boqortooyadii soo maray kuwa ugu caansanaa Soomaaliya ama aan dhahnay geeska Afrika. Kow, boqortooyadii Eyle. Boqortooyada Eyle xadaaraadkeeda waxa ay jiri jirtay 202 ilaa 1540. boqortooyadani waxa ka talinaya oo boqor ka ahaa boqor Geedi Abaabo oo Soomaalidu maanta u taqaan Geedi Shambo. Geedi Abaabo ama aan dhahnay Geedi Shambo wuxuu ahaa boqor awood badan oo nafadigiisa ahaa buur Eyle iyo buur Hakaba. Waxa boqortooynimada aaga horeeyay boqor Geedi Abaabo labadii boqor ee la kala oran jiray Fayla Aro iyo Dibka Baalo. waxa kale oo la sheegay inuu jiri jiray boqor la oran jiray boqor Haybe. boqortooyadani wax qabadkeeda ma aha mid halkan lagu soo koobi doono ee waxa aan hadli doonaa fiidiyoo kale ee soo socda insha Allah. boqortooyadii labaad ee soo martay dalka Soomaaliya waxa kamid ahaa boqortooyadii Ajuuraan. boqortooyadani waxay aas-aasantay kadib markii ay duntay boqortooyadii Eyle. boqortooyadani waxay gacanta ku qabatay ganacsiga ka jiray geeska Afrika waxayna ganacsi la gashay Carabtii iyo Yurubyaankii oo kamid ahaa Boortaqiiskii. boqortooyadii saddexaad ee soo martay dalka Soomaaliya waxa kamid ahaa boqortooyadii ama saldanadii Sangeli. saldanatan waxay kamid ahayd kuwii ugu waaweynaa ee soo maray geeska Afrika waxayna qayb ka ahayd heshiiskii uu dhexmaray ayaga iyo Yurubyaankii ku saabsanaa ganacsigii kalluumaysiga. boqortooyadan waxa ay ka talisay gobolka bari ee Soomaaliya. intaas ayuu ku eegay fiidiyooyina insha Allah. haddaan soo badinayo barnaamijkan iyo hadii kale inta community asxaabta